السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين حمراء. ولاشين حمراء ما أنت محيني هيسا. ولاشين حمراء ما أنت حيني هيسا قلي إيا هارور وحين ربا إنا نيكلا شاغو وحي كوكل في عينيهين إيا فيتامينسك كجرة فيتامينات كجرة إنا ني شاغان ربا إيا jirka waxay u taraan ama u qabtaan qofkii cuna oo laazima galayda jirka ayay waxay ka ilaalisaa jirka ayay u fiican tahay oo maxaan ku radaa jug markay ku dhacdo jirka ama dhaawac ku dhaco dhaqso bogsadaa vitamin oo like waxa ku jira maxaa la dhahaa ii sheeg u fiican in nabarka uu bogsado isla markii oo kale jug markay kugu dhacdo jirka oo iyo markii dhaawac uu ka gaaro jirka uu kugu fiicnaanayo like maxaa la dhahaa dawada loo cuno oo kale nabarada oo kale wuxuu u fiican yahay disease-ka ayay ka hortagaa disease-ka ma aragtay jirka ayay ka difaacdaa sunta iyo disease-ka soo gala jirka ayay ka difaacdaa kansarka disease-ka uu keeno iyo wadnaha disease-ka ku dhici kara ama sunta kansarka jirka soo gasha dabcan kansarka ilaa nagu maridee waa sun jirkaaga soo galaysa kadib aad xanuunsanayso noocyo badan buuna leeyahay oo jirka meelo badan u galaa marka ilaahay hanaga najeeyo marka disease-kaas ayay ka hortagtaa galayda coranta may dhahaan ama maysi dadka wadamada qaar maysi baa looga yaqaanaa coran baa la dhahaa galey baan dhahnaa annaga marka disease-kaas kansarka uu keeno ee wadnaha gala ayay dawo ka tahay oo u fiican tahay oo protect u tahay sonkorta ayay hoos u dhigtaa macaanka ayay hoos u dhigtaa dabcan vitaminaad ayaa ku jira iron baa ku jira fitamiinka dhiigga dadka birta ay dhahaan Soomaalida waxaa ku jira vitamin C you can't believe galay waxaa ku jira vitamin C ka warama waxaa ku jira vitamin markaad ilmo rabto jirkaaga haddii aad galay cunto vitamin aad ka helaysid oo ilmo aad uur qaadi karto ayaa laga helaa galayda oo ay macquul tahay inaa ilmo qaado because vitaminaadkaas ugxanta ayuu u fiican yahay laga hela galayda marka waa possible inaa marka uur qaado oo dee qofkii healthy ah unbaa uur qaado haddii ilaahay siinaayo waxay ku xiranta caafimaadkaaga inaa horta caafimaad leedahay waxaan gelaynaa maxaa la yidhaahdaa haruurkii ama masagadii masago haruur shamuure maya shamuure waa midda madow waa isla haruurka ama waa isla masagadi badarna dadaa dhaha saddex magacan Soomaali haddaan nahay u haysanaa waa masago waa haruur waa badar marka intaba aan niigu sheego Soomaaliga maadaama maasha Allah uu qani yahay uu badan yahay saddexdaas magacan u haysanaa shamuureeda taan dhahay waa tan madow weeye marka maxay ku fiican tahay weeye masagada ama haruurka ama badarku wuxuu ku fiican yahay horta sonkorta ayuu u fiican yahay sonkorta ayuu level gareeyaa uu hoos u dhigaa ayuu u fiican yahay sonkorta wuuna controlaa sonkortaada wuu controlayaa wuu level gareynayaa sonkortaada cholesterolka ayuu u fiican yahay
kolestaroolka dadka subago maxaa la dhahaa subagowga ayuu u fiican yahay. wadnaha ayuu protect gareeyaa sidii galeydii oo kale wuxuu ka protect gareeyaa inay sun soo gasho ama disease uu soo galo wadnaha ayuu ka protect gareeyaa calashan ka difaaca sunta wadnaha. waxa uu u fiican yahay oo kale dhiigkarka hoos buu u dhigaa hoos bay u dhigtaa masagadu ama haruurka ama badarku. runtii waana healthy oo jirka oo dhan ayuu healthy u yahay sida ay sheegayaan. waa inay sheegay sonkortana wuu u fiican yahay oo kolestaroolku u fiican yahay. maxaa ka fiican intaasba hadduu u fiican yahay. tan kale vitamina ku jira. vitamin waxaa ku jira A iyo B labadaba waa muhiim. tan kale lafuhu u fiican yahay boniska. waa anaga Soomaali haddaan nahay dhahana markii qofka uu jabo waa lagu kabaa. marka la kabo waa la siiyaa waa lagu kabaa waa la siiyaa si uu u kabmo. waa aaminsanahay dabcan caafimaadkiisana waa aragnay. tan kale cunadan galeyda iyo haruurkaba ama masagada ama badarkaba waxay u fiican yihiin caloosha. haddaad cunto waxa weeye qofka bini'aadanka waxaa loogu talagalay in uu saxaroodo in uu fariisto suuliga ama musqusha 2 jeer maalintii. dabcan haddaa masagada iyo haruurka iyo galeyda aad cunto ood laasinto waxa weeye waxaa tegaysaa suuliga waa soo qashin baxaysaa qashin saar ayaa sameynaysaa. waa ogtihiin cudur oo dhan waa caloosha marka waa u fiican tahay halkaas xagga caloosha. masagada sida Soomaalida ay aaminsan tahayna dhiigay saayidisaa ay dhahaan oo qof markay dhiig yaraan hayso haddii shurbad oo kale looga sameeyo ama mushaali oo cabo waa subax walba dhiig waa usoo noqdaa ayaa aaminsanahay. bal halkaan laakiin kuma qorna buugan. marka runtii haddii labadaas aan beerano waagii hore waxaan beeran jirnay labadan waa haruurka iyo galeyda waa beeran jirnay iyo digirtaba. cuntadii anfaca lahayd cuntadii nafaqada lahayd cuntadii dawada ahayd cuntadii healthiga ahayd ee caafimaadka lahayd waa ka tagnay. baasto iyo bariis baanu cunaa caafimaad daro. fiiri canjeelada xataa galey baan ka dhigan jirnay ma laha hadda canjeelo galey ma cuno. canjeelo bur ah oo soo qaroofanaysa wax yar meel haddaa dhigta soo kogaysa ayaa la cunayaa. subxaan allah. marka maxaa ka dheefaysaa iyadaaba ku cunaysa taase. marka aanu beeraheena beerano aanu wax tabcano aanu dad jiro noqono aan dhaqankeena usoo noqono aan cuntadeeni dhaqanka usoo noqono aan cuntadeeni anfaca lahayd usoo noqono aan cuntadeeni dawada ahayd usoo noqono aan cuntadeeni caafimaadka lahayd usoo noqono aan cuntadeeni dhaqanka usoo noqono dhaqanka noo ahayd digir galey haruur yaa iyo masago iyo cid walba siday u taqaan aan usoo noqono aan wax tabcano aan gaajada ka baxno aan faqriga ka baxno aan baryada ka baxno aan xooggeena maalo aan dhididkeena tuuro. waa aragteen hadda India wararka ma dhagaysataan miya. India waxay joojisay bariiskii dhoofin jirtay raashka iyo u dhoofin jirtay iyo adduunka u dhoofin jirtay way joojisay. waxay joojisay markii hore wheatkii xataa qamadigi way joojisay sidii Ukraine iyo Ruushka iyo loo joojiyay wheatkii maxaa la dhahaa qamadigi sareenkii ayay ayagana joojiyeen wuu u baxaa. waxaas dadkooda beeran dawladda ma beerta kaliya. marka dadkeena aan noqono dad anaga fiir gaajo u baqtinayna hadda dii wax kasta laga xirto wallahi gaajo u baqtinayna dhulkeeni oo dihan oo maxaan ku raahdaa qoraxdii oo free aan haysano oo in
أي وقتي wax kasta ay noo bixi karaan fiiri marna roobkan ku beeran karnaa marna ceelasha biyihii dhulka ku jira biyihii dhul ku jiraan qodan karnaa ku waraabsan karnaa beeraha aan falano Soomaaliya beeraha aan qodano aan gaajada ka baxno aan faqriga ka baxno aan ka baxno cayrta aan ka baxno raashinkana lagu gumaysanay food slavery-ga socda ma ogidin Soomaaliya waa iska jiiftiin aan ka baxno aan wax beerano aan wax tabcano aan dad noqono yaana lagu gumaysan anagoo dhulkii haysano cimiladii haysano oo biyihii haysano oo dhulkeena maxaan ku raahdaa ciidii ay dihan tahay oo maxaan ku raahdaa ay nafaqaysanto ilaahay nafaqadii uu siiyay aanba kala bixin oo aan isticmaalinba aan waxba ka soo saaranin marka Soomaaliya aan iska dayno doqonnimada aan iska dayno gacmaha isdul saaranay Soomaali haddaan nahay waa gumowni waa duqomoobni waxaan leenahay adaha wax bixiyo warkaalina soo gaara 4 saac kaalayo waxna siiyo waa tuugsanaynaa gacantaana dheer maalin kasta waa nala caynaya carabtu wayna cayn 4 saac caaya noo qoran carabtaaba noogu daran kuwa muslimiinta la sheegaya waliba carbeed 4 saac wayna caayayaan intooda hadashay social media soo gasho gaajo nagu caayayaan faqri bay nagu caayayaan anaga isyeelna waa ka bixi karnaa waxaan aan stop dhahno waxaan marka waxaan ka hadlayay haruurka hala beerto galeyda hala beerto at least galeyda iyo haruurka waxaan cuni lahayn digirta aan beerano intaas hadaan beerano walaa cidna uma baahnin burba inaan u baahnayn soo qaroofanayo caag ah waaga hore canjaalo waxaan cuni jirnay galey laga sameeyay oo hal bura lagu darin muqdisho hal bura laguma dari jirin koonfurta Soomaaliya oo dhan bur lama aqoonin canjaalo laga dhigo canjaalada galey ahayd muufada galey bay ahayd okay subaxi waxaa la cuni jiray maxaa la dhahaa shurbad ishag mushaaliya la cabi jiray oo laga sameeyay masago haruur laga sameeyay badar laga sameeyay la cabi jiray digir iyo galey baa quraac laga dhigan jiray ama casho laga dhigan jiray macsaro lagu daray sisinaan beeran jirnay raqiis sintii saas loo shiishiido organic ah lagu darsan jiray marka maxaa faqri naga dhigay maxaa gacmaha u laabanay annaga sadaqa bixin jirnay waa ogtihiin imaaraadka inaan sadaqa siin jirnay iyo carabaha maanta anaga sadaqana la siinaya anaga tuugsanin gacantana dheer tahay stop wani salaamaya intaasan ka hadlayay waa walaashin xamra share comment subscribe thumb up please bye